diyaarad ka soo kacday magaalada Kitale oo ku taala dalkan Kenya oo ku socotay caasimadda magaalada Nairobi ayaa la laayahay maalintii labaad waxa wali baaritaan ku haya ciidamada duulista hawada ee dalka Kenya waxaana sheegeen inay wali diyaaraddaasi ay maqan tahay dad Soomaali ah ayaa la sheegay inay kamid ahaayeen rikaabka diyaaradda saaran warbixin amuurta ku saabsan waxaynu diyaariyay wariyahayaga magaalada Nairobi Idris Maxamed Iman waxaa muddo ka badan 20 saac la weysan yahay diyaarad shalay ka soo duushay garoonka diyaaradaha ee Kitale isla markaana ku soo wajahneyd magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya diyaaradan ayaa waxa ay siday 10 ruux oo ay 8 kamid ahaayeen rakaab warar aan la hubin waxa ay soo warinayaan in diyaaradda oo ku socotay qadka garoonka Wilson loo wiciyay dhanka kale ee Jomo Kenyatta shaqaalaha ilaalada duujoogta ayaa waxa ay dusha sare kaga eegayaan diyaarado si loo helo goobaha la filayo in diyaaraddaasi ay ku dhacday laakiin waxa ay sheegeen cimiladu aad u liidata inay sii wadi waayeen baaritaanada lagu hubinayo helitaanka wax un macluumaad la xiriira diyaaraddaasi signalka diyaaraddaasi ayaa waxa ay sanyaalaheeda uu ka baxaya goob la filayo inay tahay kaynta Kinangop laakiin wali si dhab ah looma hubo waaxda duulista saadaasha hawada ee Kenya ayaa mas'uuliyiin u hadlay waxa ay sheegeen inay wali ku raad joogaan raadinta macluumaadka diyaaraddaasi oo rakaabka la socday la sheegay in uu mid kamid ahaa muwaadin Soomaali ah Idris Maxamed Iman RTN TV Nairobi